kaloo mahadnaqaynaa dowladdan facaweyn leh ee Itoobiya oo in badan oo inaan soo koobi karin abaal inagu leh gacan qabad inagu leh ictiraafkana raadinayno iyadu mar horeba ictiraaftay Somaliland aynu caawa markaad timadoon ka tahay halkaynu ku xusaynaa dhimay xorriyaddeena ku xusayno calankeena ku dabaaldegayno inay tahay caasimadii dalka Itoobiya Addis Ababa madaxweynahooda ra'iisul wasaarahoodana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Abiy Ahmed intaa markay ka imaado shacbiga reer Somaliland dhammaantood sagiir iyo kabiir waxay si wada jira u soo dhaweeyeen go'aankii uu qaatay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee uu bulshadiisa iyo dadkiisa ugu hilaadinayay si dadkiisa iyo dalkiisuba ay horumar u gaadhaan wuxuu qaatay go'aan kaasoo uu ku saxsanaa kaasoo uu ka turjumaya in dadka reer Somaliland oo boqolleyda ugu badan maanta ay yihiin dhalinyar inuu u hilaadiyo ama uu sifeeyo inay maanta haystaan jaaniskoodii boqolaalka iyo kumanaanka dhalinyarada ah ee ka soo baxa jaamacadaha dalka iyo kuwa dibaddaba ka soo baxa waa in loo diyaariyaa noloshoodii isbeddel nololeed waa in loo helaa taa waxaa lagu heli karaa inay wadajir buuxda iyo walaaltinimo buuxda aynu la qaadanno dalkan aynu maanta joogno ee Itoobiya kaasoo ah inaynu wax isdhaafsanno isdhexgalno siday noogu hureen inaguna aynu ugu hurno aad iyo aad buu madaxweynuhu ugu saxsan yahay aad iyo aad baan ugu garab taaganahay waxaan doonayaa inaan yaro iftiimiyo iyadoo aan heshiiska la saxiixin heerka ganacsi iyo cilaaqaadka naga dhexeeya dalkani inuu meel sare u marayo haddii aan soo yaro koobo tusaale ahaan bishii gaadiidka inoo kala gooshaa bishii waxaa laga yaabaa inay 30 kun oo gaari ay yihiin 30 kun oo gaariba marka ay sii socdaanna waxay sidaan shixnad bay sidaan marka ay soo socdaanna shixnad bay sidaan taasi waxay markaa keentay in sare u kaco dhaqaalaha dalkeena Jamhuuriyadda Somaliland marka waxaynu dekedaha u dhisaynaa waxay dekedaha u ballaadhinaynaa waxay warshadaha u samaysanaynaa waxa tawaangida weyn waxaa laga yaabaa bilaha soo socda in madaxweynuhu furo ugu yaraan 5 qaybood oo ka kooban haamaha keedka shidaalka lagu kaydiyo kuwaasoo loo diyaariyey inay dalka dibaddiisa shidaalka inooga imanayna lagu kaydiyo in dalka gudihiisa laga soo saarana uu lagu kaydiyo si dibadda loogu dhoofiyo shidaalkan Itoobiya markuu soo baxana inaan meel kale loo doonine beebkuna soo dhigo si keedka loo shidaalka loo sameeyo waxaasoo dhan loo diyaarinaya oo madaxweynuhu hilaadinaya inay dadka reer Somaliland ay horumar gaadhaan marka waa aragtay dekeda 600 oo kale ayaa lagu darayaa dekeda kale cusub baa la dhisayaa hadday tahay dekedii macaanta laga dhoofinayay iyo hadday tahay kuwa xoolaha laga dhoofinayo oo u gaaraba marka waxaan dhalinyarta ugu baaqayaa aan leeyahay dhalinyarta Somaliland reer Somaliland oo dhani waa jaaniskaagii waa waqtigaagii intaan ugu yarahay anigu reer Somaliland way sii socdaan way baxayaan ninka soo socda waa ninka yar ee dalka wax u soo baranaya ee aqoonta leh haddaan beeskiisa la dhisin oo la diyaarinin hadhowta ma dadku cunaya mise dalkiisu ka tegaya marka waxaan leeyahay reer Somaliland caawa hambalyo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dhammaan shacabka reer Somaliland ee degan Addis Ababa ay ugu faraha badan yihiin dhalinyarada wax ka barta dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo iyo guul iyo ictiraafkii oo insha Allah la dabaaldegno maalin dhow billahi tawfiiq ilaahay baa mahad leh nabadqab iyo caafimaad halkan isugu keenay inagoo xusayna 3 guuradii ka soo wareegtay gooni istaagga Jamhuuriyadda Somaliland waxaan mahad gaara u naqayaa safaaradda Jamhuuriyadda Somaliland sida qiimaha badan ee ay u soo qaban qaabisay
xafladdan iyo intii la shaqaysayba waxaan iyadana mahad gaara siinayaa dowladda Itoobiya iyo magaalada Addis Ababa iyo shaqaalaha kala qayb qaatay inay xafladdani maanta halkan ka dhacdo waxa kaloo aynu la wadaagaynaa farxadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkiisa ku nool daafaha adduunka ee meel kasta kala jooga waxaynu soo marnay marxalado fara badan uu dalkani soo maray oo kala duwan oo uu ka soo gudbay oo ay nabadiisa iyo nolosha maanta ay haystaanba ay soo gaadhsiiyeen dhaqankeenna siyaasigeenna haweenkeenna dhallinyaradeenna oo iskaashanaysaa inay maanta soo gaadho dalku halkaa maanta u marayo hadday yihiin muxaafid iyo hadday mucaaridba waxa ay ka siman yihiin qarannimada iyo gooni istaagga jamhuuriyadda Soomaaliland inuu noqdo mid halkaa ka sii anba qaada oo horumar waarta gaadha waxaan soo dhaweynay haddaanu nahay odayaasha iyo dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu garab taagnayn hoostana ka xariiqnay heshiiska ay wada galeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wadana Muuse Biixi Cabdi iyo dowladda Itoobiya oo hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa ay taasi keenaysaa iskaashiga labada dal dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo walaaltinimadii ka dhaxaysay ilaa iyo intii aynu ka soo doognay dagaaladii ka dhacay waddankeena state taasoo ay ku qaabileen dadkeena iyo dalkeennaba gacmo furan waxaan xusayaa in shacbiga Soomaaliland aanay ku noolayn Soomaaliland oo kaliya ee ay ku noolyihiin Itoobiya oo ay yihiin dad laba kaar leh oo Itoobiyaanna ah Somalilandersna waxa aynu hoosta ka xariiqaynaa maanta Itoobiya inay yihiin walaalaheen itiraaf ina siiyey iyana waxay inooga baahdaan gacmo furan baan ku soo dhaweynaa inaanu siino diyaarna way u yihiin shacabkaygu Itoobiya waa dal walaalahaya waa dadkii hablahayaga iyo haweenkayaga iyo carruurtayaguba iyadoo afka lagu sito biyaha iyo baadkaba ku siiyey qaxoontiyadii dulcad xarshin daroor rabaso iyo harda sheekha deegaanadaasi waa deegaano ay degan yihiin dadka reer Soomaaliland waxaan xusayaa oo aan rumaynayaa oo xaqiijinayaa inay labada dal yihiin laba dal oo ummadda ka soo jeeda jisigooda horena ay u ahaa sidii wasiirkii ugu horreeyay sheegay dad meel ka soo wada jeeda geeska Afrikana ku wada nool dhulka wada dhaxeeyo dadnimo ka wada dhaxayso dhaqaale ka wada dhaxeeyo waxaynu ka shaqayn doonaa oo ku boorinayaa shacbigeena Soomaaliland inay fududeeyaan isu socodka gaadiidka isu socodka baayac mushtarka dowladda Itoobiyana iyana sidaas leeg baanu ka codsanaynaa iyana inay fududeyso wixii xaggeeda ku xidhan dhawaan waxaynu rajaynaynaa saxiixii halkan lagu seexay sanadkan aynu maanta ku jirno oo sanadada kale ka duwan January kowdeedii inuu dhammaystirmo inta aan sanadku dhammaan insha Allah ta'ala waxaynu rajaynaynaa horumar waxaynu rajaynaynaa halkay maanta uu dalku taagan yahay inuu ka sii gudbo waxaynu rajaynaynaa nabadda iyo wanaagga aynu ku noolahay inaynu doorashooyinka soo socdana ku gaadhno inagoo gacmaha isku haysana Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha israacdo qarannimadeenu ha waarto qarankeenu ha jiro dowladda Itoobiyana waan uga mahad celinaynaa itiraafka ay Soomaaliland siisay